xoolo manafacad waxa ilaahay carruurtana u maalay labada sac iibna waan ku waday waliba anoo baahi geysay soo garmaysid iyaguna halkaas iga dileen Abu Ali Abdi Umar waa aabba ku nool magaalada Hargeisa oo haysta 9 carruur waxa uu sheegay in uu 9 carruurta ku koriyo 2 neef oo sac iyo 20 ariya waxa haddaba ay saaka isaga iyo 7 carruur ee uu dhalay cabasho la hor yimaadeen golaha baarlamaanka Soomaaliland iyagoo ka cabanaya maayirka caasimadda Hargeisa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko oo ay sheegeen in uu 2 neef ee sac ah ee uu reerku ku tiirsanaa muddo 30 maalmood meel kaga xidhay waxa ay bulshada ugu baaqeen in ay arintaasi wax kala qabtaan magacayga Cali Cabdiya marka hore waxaan ka cabanayaa 2 sac oo halkan maayirku iga soo xareeyay oo maalintii Muuse waxa ka yimid Itoobiya ahayd waxaan u tagay maayirku xigeenka wuxuu igu yiri waxaan la soo shirayaa golaha wuxuu ka soo noqday markuu ka soo noqday buu yiri u tagay agaasimaha markaan u tagay buu agaasimaha waxba nooma sheegin waan ku noqday haddana dhowr cisho dambe bil sadekeed baan ku noqonay maalintu loodii farfadhiisatay bay yiraahdeen gaari u yeedho ka hayso loodii farfadhida waxaan ku aan waqtigan qaadan maayo si habeen hore ku dhaxdhalay xerboontan maxkamada taagteeda makaankii baa ka soo dhacay imikana waan soo tuskaraa isagoo makaan ka soo dhaco daba yaalo xalay ugu dhaha gaar saaro ma qaadanaya ku aan waqtigan waqtiga saawata saasi gadhatay faad waxa ilaahay carruurtana u maalay labada sac iibna waan ku waday waliba anoo baahi geysay soo garmaysid iyaguna halkaas iga dileen Sheekh Umar waxa diyo kale 20 neef oo joog kale ariyaha xoolaayga la simanayaan waxa ku dileen makaanka ka soo dhacay sta oo ka meesha dhaxyala waan tuso karaana waxaan soo kacay maxkamadiina waa laga soori golaha dhexe baarlamaanka nimid kii baarlamaanka uu soo saaray inta dadku tiriyo waxa weyn in ninka dheregsan laga qabto ilaahay dadkii laga qabto waxa xusid mudan aabahan watay 7 carruur ayaa ilmada xijisan waayay markii ay soo galeen golaha baarlamaanka Soomaaliland isaga iyo 7 carruur ee uu dhalay calooliyowga ay ku hayso dhibkaasi uu tirsanaya darteed boqor Axmed Cabdi 5 TV Hargeisa.